Välkommen till Halkan Okej. waa Muna Daisy Yes. channel kusoo dhawaada haddaad rabtid inaad video kala daawatid click saar subscribe saar comment na sii wakaas videogan maanta waxaan u duubaynaa inaan iskiin barno magacaygu waa Muna Daisy halkan waxay la fadhidaa Ayana sida dadka badan oo yaqaanaan laakiin ayaan baa la dhahaa waxaana la dhashay 3 kale way ka mid tahay Hodan Cabdifataax iyo Maxamed maxaa la yiraahdaa Duwan serious no serious maanta waxaan rabaa inaa haddaad rabtiin ogaatiin halkay ka bilowday ayaan dhalinyaradeedii alla markii ciyaalka ahayd ciyaal badan ma ka bilowday son sexo waxay isku dareemayaan jir malayd markaad bilowday fargisbir 6 jir ma ahayn 7 jir 8 jir meelaha so wax ka sheeki waxaan ka sheega shucuurtaada see ahayd shucuurtaada wow horta fargisbil waxa weeyaan fargisbil ayuu fargisbil po Somalis markii noqonaya Somalis marka lagu dhaho fargisbil waa horta of English waxa weeyaan color play-guna waxay ka wadaan macnaheedu waxa weeyaan egentlig dad meel wadana badan ka yimid oo la isku keenay cadaan madow Soomaali waxay doonaha ahaadaan taas way color play loo dhahay magaalada doonaha ka yimaadaan meeshay doon waa ilaa culture-kay doonaan ha wataan religion-kay doonaan ha wataan waxaasaa color play loo dhahay ilaa waxay ku koobnaayeen 100 qof 100 ciyaal adu ciyaal iyo dhalinyaro isugu jirto ilmaa 25 jir isugu jiraan 25 jir wixii ka hooseeya ilaa inta u dhaxeeya weeyaan marka qof kastaba oo wadan kasta ka yimid groupkiisa dhaqankooda soo bandhigi jiray marka kuwii Soomaalida ku jiray anagu dhaqankeena soo bandhigi jirnay kuwa kale dhaqamadooda markaas la isku dhaxtari jiray marka la isku darana show aan ka sameyn jirnay qof kastaba heestiisa in yar ka soo qaadanayay oo la isku dhaxtari jiray so which is wax khatar waa amazing oo Norway dante ay la dhaceen dhahan wow ina wax cusub bismay ciyaalkana waxa uu sameeyeen waxay hadsi ciyaalka ay uga hadaan waxyaalaha xun ee la sameeyo يبلع عملك عمل في عم بوسميين مركا تاوي بكو فرحسنين عيال كدن and then marka ano 9 jir misle jir ayaan galay iyaduna marka day may weyneen laakiin toddobaad bana ay heesi jirtay iyada laftirkeeda pension kan galane hees badan bay meesha ka soo qaaday inama oga laakiin fanaanad soo socota so aniguna markaa waxaan ku jiray ciyaalkan kamid ahaayo waxaan barbaranayay waxaan kamid ahaa ciyaalka yar orday meelaha ciyaarta iyo codadka yar ciyaalku heesaha ka dabaqa qaadaan ma xasuustaa xaqiis ya husker heesi waxaan ku heesi jirnay heestirade hadarta waxaan ciyaalka ku heesi jiray marka yar weynaadayna day way maxay had wali bedelo marka arkeenan cod leeyahay heesa la dibi jiray inta ku faraxsanay and then maxay harta 10 jir markaan gaaray mise 12 jir meelaha waan ka haray school baan bilaabay dhowr sano waan ka haray haddana waan ku soo noqday and then waxay meesha nagu bari jireen sida toonka codka qofka codka sida loo barto toonanku leeyahay iyo meeshu ka heesi karo iyo waxyaabo badan bayna bareen oo every week aan tagi jirnay so waxyaabo badan marxaa ka soo bartay fankaxaan ka soo bilaabay ahayd heesaha dhaqankan ka soo heesi jiray aan ka soo qaadi jiray markaan yar weynaaday oo aad ugu mashquulsanaa heesaha dhaqankiina qaado iyo heeseen barigii hore ciyaalka lagu seexin jiray kamid tahay kuwa geelkii waxaa maxay loo raacday geelkii baa arooray la oranay geelkii baa arooray waxaas starta ada iyada qaadi jirtay anaa markii damba lagu wareejiyay
iyo huwa huwana waan qaaday dad badan baa yidhaahda ma ayaanaba ma qof kaleba laakiin waa aniga heesta qofka qaaday so yeah fargisbil walaa wuxuu ahaa wax fanka wax badan iga soo baray intaana soo galin fanka fargisbil wax badan ay usoo qabatay iyaal dhalinyar badan ولكن قار كمي فائديسن inkastoo maad aragtay mar kasta bay ku raadaan naga faa'iideysta wax kasta hayaan caawinayna wax kasta laakiin meel kale iska ma so that's it so maxay kale maxay horta hadaa su'aalo kala rabtaan ad ogaatiin wax kala rabtaan laga hadlo oon ka hadalno maadaama hadda suukin sheegnay waa walaasha youtube-keeda ku cusub tahay dawaan isla joognaa mar kasta haddaad su'aalo kala u baahataan inaan ka hadalno kamadka kusoo qoro waxbaa ka xishoonna sheertana taabta like-tana sax maxaa la dhahay blink-tana taabta so you know next time videoga kale soo gala dhac haddana haddii aad rabtiin inaad waxyaalo kale ka ogaatiin inaa ayaan heese kale soo wado ama iyada waad kala waxyaalo cusub kala wareysan kartiin iga soo wareysan kartiin heestii niima soo gudbin kara laakiin inay soo baxayso hees waxaas oo niga soo ka hadli karnaa joobi karnaa haddana waxaan rabnaa inaan reaction ka sameyno heesahayga ama heesa dadka la iska leeyihiin inkastoo dad badan reaction kasoo sameeyeen haddana heestay markaa heestaan u qaaday way ka yar duwan tahay intaan markaa anagu ka sameynayno waayo anagu waan isla dhalanay waan isla soo kornay reaction sameyn doona yes so yeah waxaan leenahay kusoo dhawaada